waayahay koobka kooxdoodu ay mutaysteen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya xildhibaan Axmed Cumar Islaaw ayaa guddoonsiiyay degmada Shibis koobka kuwa tabeelaad fadhisaaniya koobka raalihaala degmada Shibis baxadi koraaliya joojiya rabshaqaad wadaan taageerayaasha siyaasadda madaxdii kale ayaa fadhisa labadii gudoomiye hodan iyo wadajir way fadhiyaan way soo diyaariyeen ciyaartooyda iyaguna waxay leeyihiin caawa guul baan rabnaa waan ogaanaynaa bara halkay wax gaaraan gudoomiyayaal kale oo degmooyinka gobolka ka socdaa fadhiya iyaguna waxaan leenahay waa mahadsantii salaanta ayaa hadda runtii socota waana bilabtii iyo koobkiina waxaa gacanta ka saaraya gudoomiyaha gobolka Banaadir Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow champion wadajir aan tartankii kubadda kolayga habeen ku qabanayno dhalinyarada caasimadana ay runtii aad iyo aad uga soo wada qayb galeen una damaashaadayaan tanoo muujinaysa sida maamulka gobolka Banaadir uga go'an tahay horumarinta caasimadda dhiirigelinta dhalinyarada isdhexgalka bulshada iyo sidii dhalinyarada ugu abuuri lahayn fursad iyo jawi ay ku muujiyaan kartidooda iyo talentigooda tanna waxaan caawa mar kale u mahadcelinaynaa dhammaan cid alaale ciddii kaalin ka geysatay sidii tartankan noogu dhammaan lahaa si qurux badan muddo 2 bilood soo socday gabdhaha caawa daawanay iyo ceer wanaagga soo muujiyeenna degmooyinka iyo Shibis wadajir ayagana waxaan leenahay waa wada guulaysateen waxaan rajaynaynaa tartankiisa gabdhaha inaan aad u dhiirigelinno gabdho badan oo daawadana aan arki doonno sidoo kale tartankii isagana wiilasha oo kubadda kolayga ee degmooyinka wadajir iyo hodan oo soo bandhigay ciyaar runtii xiiso leh u dhiganta ciyaaraha seeriyaada u dhiganta ciyaaraha adduunka runtii waxaan oran karnaa ayagana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin caawa wax kale noo haray ma laha inaan farxadda iyo reereynta wada qaybsanno isla markaana aan u diyaar garowno bixidda koobabka waa mahadsantiin